7 saac ilaa 8 saac iyo bar oo habeenimo xalay waxa la damiyay dhammaan korontadii ku xidhneed wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. sababta xilligaasi loo damiyay quburada dhanka amniga waxay sheegeen inay ahayd miina aasid lagu aasayay dhammaan tabeelooyinka ku xiran kaamirooyinka qarsoon ee ku dhagan wadada Maka al-Mukarrama iyo qeybaha kale oo ka mid ah degmooyinka ku dhow wadadaasi. tobanka iyo qadar 50 daqiiqo oo habeenimo xalay waxaa bilowday howlgal qorsheysan oo ay qorsheeyeen kooxihii ku dhajiyay miinooyinka si la mid ah hub culus oo qalqalgelin ayaa loo badinayaa in waqtigaasi lagu dhex qariyay si loo marin habaabiyo laamaha amniga ee Soomaaliya. siyaasadda cusub ee sugidda amniga dowladda hore waxay u sameysay koox dhar cad ah oo lagu magacaabo ciidanka ilaalada shacabka kuwaasi oo si qaas ah u ilaalin jiray waddo walba oo ay ku dhigan tahay kaamirada iyo shacabka ku sugan goobahaasi. gabi ahaan ciidankaasi dharcadka ayaa xalay ka maqnaa goobaha la qarxiyay halka horey shaqada ay u kala lahaayeen habeen iyo maalin. si la mid ah saraakiisha ilaalada ee xalay shaqada ku lahaa wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho iyo ciidankooda ayaa ka maqnaa goobaha shaqadooda ee wadadaasi. mid ka mid ah saraakiisha nabad sugidda ee Soomaaliya ayaa ii xaqiijiyay subaxnimadii hore ee saakay in su'aalo laga weydiinayay saraakiisha ciidamadooda xalay ee shaqada ku lahaa wadadaasi iyo sargaalka hogaaminaya ciidanka dharcadka ee lagu talagalay inuu ka qayb qaato ammaanka goobahaasi. kooxda al-shabaab waxay sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay ku tilmaameen in caqabad badan ay ku hayeen kaamirooyinkaasi maadaama falad ammaanka lidku ay ka geysan jireen